sida loogu talagalay barkay waxay u qaateen si ethnic ay u qaateen kaasana marka ay u kala dhulgoosiga dhibaatadiisa in la isku haysto hadii baawarka iyo dhaqaalihii iyo awoodii maamulka gudaha la qaybin lahaa oo adis ayna ku koobnaan lahayn ma aan ahaalahayn xaaladda saan marka hadda fiirsan Harare dibka ka taagan waxa isku haystaan oramada iyo hataa qaybo kamid ah dadka daraakilka iyo Soomaalida isku haystaan meel aan la isku haysanin ma laha marka systemka kaas marka saas uu yahay wax kasta oo la sheego oo dawladda Addis Ababa ay tiraahdo caasimadan ku ballaarinayna marka aan ballaarinana oramada xagga daga xaqeeda siinana oramada moo arkaya xaqooda in la siinayo waxay u arkayaan dhulkoodii in la qaadanayo taas waa marka mid constitutionki wax ka muhiimsan ka muuqdo marka waxay ahayd constitutionki in la wada dhowro oo dadka dhan ay constitutionka qiimo siiyaan laakiin hadda waxaad arkaysaa constitutionki inaan la wada dhowreynin oo loo arkayo constitutionki inuu u danaynayo on la tigreega marka kuwa kale marka wax ay ka qabaan oo in la burburiyo inaan la burburin ma kaliya waxay wada arkaa ana xaqayga ii soo celin xaqayga ii soo celiso wada noolaan hadaan ii soo celin ma wada noolaan laakiin arrintii doodu ka dhalatay ee ahayd waxba la ballaarinaya dawladdu markii aragtay dhibka ka yimid waa joojisay markiiba waa halkaasi uga hartay maxaa sii wada weli sanad baa la maraya waxaa sii wado xarigii iyo dadkii la xarxaray iyo dadkii dhibaatada ka soo gaartay consequence ka dhashay macna tiijadii ka dhalatay arrintaasi dawladda xal ma ka samaysan وايه مثلا ولي دتك سياسيين u xiran yihiin waa tahay haday dadkii wali siyaasi u xiran yihiin oo in dawladda xal ka sameeyna oo aan loo daadegin ubuucda hoose in la xaliyo wali waa tagnaanaysa shakiga cabsida waa tahay dhinac kale markaan ka eegno isla arrintan dawladda Itoobiya waxay ku eedeysay dalal dibadda ah inay arrinta ku lug leeyihiin oo ay horinayaan arrintaasna wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Getachew ayaa BBC-da uga waramay. We have ample evidence that trainings have happened, financing have happened in Egypt. waxaan haynaa caddayn nagu filan oo ah in tababarro la siiyey dhaqaale lagu bixiyey gudaha Masar guddigu waa ku maqan yahay haddii dawladda Masar ay mas'uuliyadda qaadanayso amaba ay beeninayso laakiin waxaan la yaabi doonin in ay beenin doonaan inay mas'uul ka yihiin mana oranayno si toos ay dawladda Masar ugu lug leedahay laakiin waxaanu ognahay ee xaqiiqada waxa weeye in ururka argagixisada OLF jabhadda xoreynta Oromada ay taageero nooc walba ah ka helayeen Masar. The terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. waa tahay wasiirka warfaafinta ayuu ahaa Ethiopia waxaan la hadlayaa markaan Dr. Sacad qadka Mareykanka ku jira maxay kula tahay doctor arrintan saameyn dibadda ah faragelin inta ay la ekaan kartaa wasiirku ciduu ka hadlaya waa Masar weeye dawladuna sida dawladda Ethiopia waxay saxaafadda qaarkoodba waxay masaarida ku tuhmayaan inay gacan siinayaan qoladan Oromada waxay leeyihiin labada jamhadoodba waxay u fureen xafiisyo aan muuqan iyaga lacag iyo hubasi Eritreana waa kula jirtaa bay leeyihiin saxaafadda Masar waan ka eegaa arrinta leeyahay umuuraha aan aad ula socdaa weeye saxaafadda Masar markaad eegto waxa lagu qorayay iyagu siday uga jawaabayaan midkan ay dawladdu sheegaysay iyaga kay masaaridu sheegayaan waa kala fog yihiin haye masaaridu waxay leeyihiin anagu gacan kuma lihin Soomaaliyaanu galin dawlad kalena umaanu soo marina waa arrin gudaha ka qaraxday Ethiopia ayaa mas'uuliyadaasi tooda weeye anaga in la soo fuulama hadii kale proof loo keeno laakiin mid baan ku sheegay Axmedow wax weeye labadan dawladood runtii waxay isugu tukubayaan iminka sida Soomaaliyeed ula boocabay isugu tukubayaan sababtuna waxa weeye biixireenka la yiraahdo millennium ee Ethiopia sameynayso kaasoo masaaridu iminka si caad ay u arkaan Ethiopia siday doonayso inay u samaysato shirkadihii la yiri barraayi naga siiya wixii ka soo bixi kara xumaana dhulu duminayo butaacabiyo intii bay inay iska dhaga mareen
haddaad saxaafadda masar akhrido subaxdii walba markaad eegto waxaad arkaysaa baroor taagan iyo qaylo leh waa laynagu soo socdaa ee aynu arrintan gacan ka qaadno oo nimankan iska joojino taasi waa mid meesha taalo wey marka waxa weeye intaa wax ka badani ma jiraan taasina anigu waxaan u arkaa xidhiidhka labada